عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاربنا مانت إنا فهنو أوغانو qodobada oo nagu caawin karo inay maskaxdeena ay joogto marka wax akhrisanayno ama focuska ama waxa loo yaqaan tarkiiska soo qofka oo ku ilaalin kara. marka hore waxa isweydiinayna what's focus ama tarkiis maxay yahay. Focus waxa lahaa hal wax kaliya inay ku caddeeyeen oo maskaxdaada halkaas wax kaliya ay u jeedo ee rabto markaas soo waxyaabaha kale dhan maskaxdaada waxba kama gelin. markaas waxa loo yaqaan focus ama tarkiis. hadda islaheena umalena waxa la dhaho focus waxa laga wado hadda waxa gudagaleena qodobada oo nagu caawinayo maskaxdeena mar walba inay soo jeedo ee hal focus ay sameyso. qodobka wad waxa waaye inaa marka u horeysa aad ka fogaatid wax walba oo aad ku dhibayaan, wax walba maskaxdaada jeedinayaan, wax walba oo ku mashquulinaya inaad ka fogaatid. guriga hadaa joogtid inaad dadka guri jooga u sheegtid ani maanta waxa akhrisanaa, ani saacadaas waxa akhrisanaa, yaa la soo gargaraacin, yaa la imaanin, yaa la qasin inaad dhahdid. sidoo kale wax walba oo ku mashquulinaya oo ugu horeeya shaydaanka mobilka inaad iska ilaalisid, banaanka iska saartid marka hore. kale waxa la mid ah wax walba oo ku mashquulinayaan ogtahay in maskaxdaada ay hadhooti ama ay ku qasayaan inaad iska fogeysid. qodobka koowaad aad muhiim u yahay. qodobka labaad waa inaad soo diyaarsataa wax walba aad u baahan tahay, buugaaga, qalinkaaga, laptopkaaga wax ka akhrisanaysid, haddii kale asaga laftirkiisa inaad banaanka iskaga soo tagtid. sidoo kale wax walba u baahan tahay, cabitaan hadduu ahaado, cunto fudud hadday ahaato, kulli inaad soo wada diyaarsatid. intaas maxaa ka fogaanay inaad rabtid inaad wax soo qabsatid hadhooti oo haddana dad kale ku sii mashquushid ama wax kale lagu sii darsado inta banaanka u baxdid. waxaas dhan ka fogaanay markaan maskaxda waa soo diyaarisay wixii dhan waa soo diyaarsatay, wax akhris soo fariisatay 10 daqiiqo 15 daqiiqo marka wax akhrineysay maskaxda waxay ku bilaabay inay بريشرك أساسي qaabka uga baxsan lahayd inay uga baxsato isku day. waxa kugu soo dhacay fikrado markii hore ilowsaneed sida inaad soo xasuusatid markaas eedada marka kugu dambeysay iyo meelaha wax dhigto ilowday iyo wax muhiim ah markaas ay ilowsaneed kugu soo dhacayaan. markaas waxa laga rabaa inaad soo qaadatid buug iyo qalin oo gooni oo fikradaas aad ku qortid oo maskaxdaada uga hortagtid aad soo qabsanay wixii fikrado kugu soo dhacay dhan kulli wanaad garanay waxa akhriskaaga hore u soconay. qodobka saddexaad waxa inaad ka warqabtid maskaxdaada waxay sameynayso aad ka hortagtid. qodobka afraad waxa waaye qaabka wax akhrinaysid. ma aan qofka inuu 3 saac 4 saac isku xigto inuu wax akhrinayo ilaa uu ka daalayo. maskaxda bini'aadamka tarkiis waxay sameyn kartaa muddo 25 daqiiqo kadib 10 daqiiqo ama 5 daqiiqo break aad qaadatid maskaxdaada information si fiican u galayaan saacado fara badan wax u akhrin kartaa. halkaasna waxa sii qaaday dhiirigelin hadafyo fara badan wax xaqiijinay muddo gaaban adoo dareemin oo daalin oo waliba productive qodobka shanaad ee ugu dambeeyo inaad is abaal marisid mar walba hadafyada aad xaqiijisid nafsadaada si mar walba ugu qanacdo maskaxdaadana dhow ee kula shaqeyso waa inaad is abaal marisaa waxa jeceshahay markaas aad sameysid oo nafsadaada aad ku abaal marisid. intaas soo gabagabeena waxaan rajeynayaa ugu yaraan aad ka faa'iidaysatay oo ku mahadsantahay daawashada muuqaalka.